بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهما هو مرتي معنى قاريو وجيدله ملقدي أفكهويو مرايدي سويال كينا مهما هذا أن ما أنتنا إذين هيو معنى حل داريو ميزان علوس بيلاد هاي أن مقباهيها إذين صومرية ميل والبوء جوكتان داو ضيال مالين وناكسن وحاكو بالله بيا برنامج كمركة وغوه الرئيسو in aan horta ka cudur daarto daahan ku yimid iyo kala fogaanshaha isbuuciyadii hadda oo aad u kala dhahay sababta wax kale maahan waa iyadoo waqtigii sidaan mooday maahe si kale waqtiga ciriiri noqday marka daruuftaas ayaa sababayso marka laakiin mid aan idin sheegaya inta aan awoodo waqtina u helo mar walba aan waqti u helo waa soo gelinayaa waana soo xulayaa mahmaahyada aan soo qaadan doono marka taas ayaan idinku ballan qaadayaa dhalinyarada iyo dadka qaar ee su'aalaha isoo weydiinaya inaan intaas in ka dheer macneeyo barnaamijka uu iska gaaban yahay barnaamij ka weynaan wadaa oo aan qoridii howl ku wadnaa oon diyaarinaynaa ah in isagoo soconayo waqtiyo ka dheer uu la diyaariyo oo sharaxaadaas ay intaas ka badan tahay laakiin kan aan soo gelinayno bartayda facebook aan soo gelinayo waa inuu koobnaado si dadka waqti dheer ay ugu qaadan marka macno dheer oo badan waqti looma heli karo laakiin waxaan ku dadaalayaa in aan erayada aan isleeyahay erayadaana ka baxay hadda suuq oo joogto looma isticmaalo inaan macneeyo ama eraygan u arko adinkan mar walba aad isoo weydiin kartiin oo sidaan haddaba sameeyo markaad isoo weydiisiin waa idiin soo jawaabayaa oo waa idiin soo macnaynayaa ama mahmaahda ama erayada qaar ee aad isleedihiin in la waadixiyo u baahan oo xoogaa intaas si ka waafisan loo sharaxo marka isoo weydiiya erayada qaar iyo mahmaahyada daad waxa qaar aad fahmi weydaan sidaa haddaba samaysiin anna waa idinkaga soo jawaabay mahmaahda aan toddobaadkan idiin hayo waa nimaan kayd u oolin kaliil kama baxo waan ku celinaya haddaba dhegaysta nimaan kayd u oolin kaliil kama baxo qofka macnaheedu waxay tahay qofka haddii uunan waxba dhiganin oo uu wax meel uu dhigtay iyo wax kale jirin kayd uu lahayn hadda kaliisha kama baxayo kaliishana waxaa la yidhahdaa kaliil xilliga kulaylaha ee ka horeeya xilli roobaadka marka roob ma daa'o kulayl daran ayaa jiro oon haraad ayaa jiro marka qof aanan kayd lahayn kama baxo waqtigaas beero soo go-ana maba lahanba xilligaas waa xilli kulayl oo daran oon roobab di'inba marka haddii ceel uu qodnayn way adag tahay in laga baxo waqtigaas adag haddii kayd bakaar oolin oo raashinka wixii aan la kaydinin badarkii aan la kaydinin lagama bixi kara xilligaas adag soo maahan marka nimaan kayd u oolin kaliil kama baxo marka taas waa muhiim waxaa kaloo loo isticmaali karaa xitaa qof aanan wax macno leh dhiganin yacni maadiyaan ka hadalnay keliya inuu qofka wax meel dhigto si macnawi ah qofka haddii uunan cilmi kororsan dhibaatooyinka soo wajaho kama baxsan karo qofka haddii uunan tarbiyeynin carruurtiisa oo uunan ku dadaalin hadhow hadda wax badan uu ka sugaaya ma laha oo ah yacni in ay ka gudbaan xaaladaha iyo marxaladaha adag ee nolosha ilaa intuu ilaahay u naxariisto u fududeeya maahe waxaa kaloo muhiimay u tahay xitaa diiniyan qof aanan ilaahay hortiisa kayd dhiganin intuu noolaa oo adduunyada dul joogay oo aanan wax sadaqaysanin oo aanan ku dadaalin camal wanaagsan oo waxba yacni aanan horumarsanin kayd uu aakhiro la tago hadda kaliil kama baxo maalinta qiyaamaha iyo xisaabtii kama bixi karo waxba uu diyaarsaday ma leh dhinac weliba xitaa waxaa loo adeegsan karaa dhinaca soomaalinimada iyo islaamnimada qofka haddii uunan carruurtii wixii ku tarbiyadaynin oo uunan waddankii dadkiiyo dalkii abaalgashanin hadda wax uu horumarsaday oo u yaalla meeshaas ma laha hadda goormuu ka baxayaa marka dhibaatada marka waddanka xitaa haddii aanan hannaankiiyo tubtii horumarka la qabadsiinin haddee dhibaatada kama baxaya marka dhinac welibaa loo adeegsan karaa nolol maalmeedkaa lagu dabaqi karaa fariinta xigmaddan ay xambaarsan tahay waxa waaye waa in uu qofka aayatiinkiisa ka fakeraa maxay ahayd ubadka maanta waa aayatiinkii berito aayatiinka berito waa iyaga kuwa dalka badbaadinayo waa iyaga kuwa berri haddaad dhimato kuu soo ducaynayo aayatiinkii berito waa ubadkii maanta marka iyaga haddaad hanti geliso waqti geliso xoog geliso waxbarasho geliso dhinac weliba u taagan tahay
adduunyana waad ku aflaxaysaa oo adduunyadoodii bay qabsanayaan, aakhirana waxbay kuu tarayaan oo waa kayd aa u dhigatay aakhiro oo way kuu soo ducaynayaan geeridaada kadib hadduu ilaahay idmo. marka kayd ha la dhigto ayuu dardaarankeena yahay, ha la dadaalo. keliyana maahan kaydka maadiga ah in badarkii biyaha un la kaydsado, waa daruuri waana aasaas, mahmahadanu saas bay ku baxday. laakiin in xitaa ubadka maanta la geliyo ayagaa ah aayatiinkii berito. ubadka maanta aayatiinkii berito ha lagu dadaalo. nimaan kayd u oolin kaliil kama baxo. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.